qisadii soo noqnoqotay oo galbeedkii way soo dhaaftay liba xalamtana soo dhaaf khaniisiintii Soomaali bay iskuulo iyo jaamacada ka dhex samaysteen waatan hata Hargeysa agagaarkeeda iskuulada khaniisiinta ka furan kuwii ugu caansanaa dunida khaniisnimada oo dholeynayay baa dhex taagan ilmahan iyo gabdhahan markaasay madaxdeennina difaacaysaa ay waardiyeynaysaa maxaa la barayaa dadka khaniisnimo la barayaa khaniisnimo fidinaya ninkan dacwo iyo diin buu wataa baadariga maraya waa khaniis maalqabeynka maraya waa khaniis macallinka marayana waa khaniis ilmaha meesha lagu ururinayo khaniis ma akhlaaq fiican ilmo ku bari nin laba isku darsaday labadii qowm luud gaalnimo iyo khaniisnimo isku darsaday ninka waxa khayrka iyo wanaagga ka sugiyo isku bari muxuu yahay horumarka iyo wanaaggu ku keenay muxuu yahay nin isagaba aakhiriya adduunba ilaahay fasaaday oo baabaasan aakhiriya adduunba wanaaggu ku keenay maxay tahay in la soo dhaweeyo gaal khaniisna kuwii ilaahay dhulka intuu la gooyay dabagediyay dariiqoodii baynu haynaa saxiix nabigu waa sheegay asamsa inaan samayn doono xadiidka abi saciid khudri wuxuu ku yidhi latatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh kuwii idinka horreeya jidkooda aad raaci doontaan taaka taako dhudhun dhudhun bahasha la yidhaahdo dabbada oo maasacagalayda ka yar godkeeda hataa hadday galaan waad ka dabagelaysaan fii riwaayatin saxiixatin lilxaakim fii mustadraki wuxuu yihi xataa mid hadduu hooyadii fuulo hooyooyinkii baad fuuli doontaan haddii khaniisnimo difaacadeen soo hadda inagu ma difaacanayno maxaa dhiman dariiqa in hooyadii uu fuuliyo inuu khaniis boonbooniyo maxaa u dhexeeya wax yar baa u dhexeeya maalmo un bay u baahan tahay in la gaadho latatabicunna sanana man kaana qablakum waay waxaasi wax qof iyo mujtamaca muslima ay aqbalaan maaha waxa laga aamusana maaha in ummadii muslimka ahayd khaniisiin loo boonbooniyo lagu madax salaaxo ubadkii muslimka ahaydna kuwii ilaahay dhulka intuu la gooyay dabagediyey xijaaratan min sijirin manduudin la yidhi ubadkii tarbiyadoodii loo gacangeliyo arrinaan habboonayn waay gaal waba isdhaamaaye haddana khaniis ah war ilaahay ha laga cabsado war dadkan muslimiinta ama madax sheeganaya ama ay wax ka maqlayaan ummaddan ilaahay ha uga baqaan ha ogaadaan waxa ay isdifaacayaan ay sababta u yihiin dembigii ka dhasha ilaa yowmi alqiyaama uu ku soconaya safxaadkooda ku soconaya berri xilka waad ka tegi waadna dhiman laakiin dembigaa daba dheeraada diiwaankuu kuu gelay aakhiro markii ilaahay ku weydiiyo maxaad waxaan dadka ugu sii dayseed ugu difaacdood ugu qiil bixisay ilaahay aakhiro hortiisa maxaad dhihi adoo keligaa oo qaawan oo qabri ku jira marka lagu weydiiyo jidka hore uu yahay ama naar ama janno yahay war ilaahay maxaa la hortagaysaan war ilaahay aan ka yaabno war waxaan waa wixii ummado lagu halaagay meeshii lagu halaagayna maalin walba markhaati leedahoo la maro wabileyli afalaa tacqiluuna dadka lala hadlayay inagu waye wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun war dadkaa fariinteedu hadday gaadhaysa ilaahay ha uga baqaan dadka idinkuna ogaada oo aakhiru zamaan baa la joogaa waqtigii calanka khaniisyada xataa yastaqniya arijaalu birijaali wاnisaau bالnisaai nabigu uu yihi way muuqataa qiyaamo ma dheera AG Nutrition ayaa kula diyaar ah dawo tayo wacan oo laga sameeyay dhuuxiga gunta hoose ee dhirta ee maantaba gaar rugta la isku arkay AG Nutrition adoon qaarad kala tagin qarash badanna ka bixin qaxarkii ka rayso ha ka qadine soo gaar AG Nutrition kansarkii ku haleeliyo gaaskii kugu dilaacay oo deeftiba qudan weyday dhiigarkii kugu dhuftay oo dhaayaha ka asiibay iyo dhammaan cudurrada wax dilooda shirkadda ka daweysiyo dawadeeda degdeg kugu siin waa AG Nutrition waxaan kelmadigan adiga u yahay gacmahayga wax ku qabsan karin lugayga la yeeltay karin caafimaadkayga aad u hooseeyo marka ka bacdi waxa la keenay kelmadigan waxa ka qaatay laba xabo daawo
labada daawaha waxaan ku noqday 20 jir waxaan ka cabanayay caado wareer ilaa ma qasab 4 sano waxna ma qabin maamadan waxay muddo dheer la dhibaataysanayd cudurka caado wareerka sidoo kale say noo sheegtay muddo dheer ilmaama aysan dhalin balse markii isticmaashay daawada casriga ee Jazera way ku caafimaadday goor kasta daawada la soco ku xidhnow page-ka Facebook ee Dulmar Media fadlan daawada follow garayso page-ka Facebook ee Dulmar Media siina like garayso page-ka si aad goor kasta halkan uga heshid warar iyo warbixino ku raali geliya waad mahadsan tahay ee goor kasta la soco ku xidhnow Dulmar Media